بسم الله شروينا وضع تشجع برشلونة ديجان كالصومالي ده وكسب باللوضة شركة أفرتي إلى لحدي أبس لبضة كوني كوبي ولا تنك يجود ديجا فلين تجمد ودري وحرين توجدني حاسو كان عين مجال ده السبب شركة وحصام مرة مرحلة كده جديسن ودقنا أيوة هاي أصحاب السياسة ده أفرتعه يجود أقويها أنا والله ما قاعد بحي حلدان كنا السعودية مركي هراء وضع تشي ودحيي حزبية يجود ديجا ayaa maalmihii u dambeeyay laga leexiyay wadadii saxda ahayd ee uu ku socday waxaana laga saaray doorkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan galiyay loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah kadib markii ay jawxa aragtay marhaabinta geedi socodka shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wada astaamaha iyo shacaa'irka xisbiyada lagana soo qaaday in ay dhageystayaal kan ahaadaan kulankan wax dowr ahna ayna ku yeelanin geedi socodka shirka kadib markii ay jawxa aragtay xaqiiqsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyay guddiga fulinta jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya shir uu ku yeeshay 18 ilaa 20 Sebtembar 2022 magaalada Jigjiga wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qayb galaynin shirkaas ilaa laga saxayo qaladaadkaas kor ku xusan jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya midnimo isku tashi Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du amaan xubnaha goobjoogka ee guddiga jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya dhammaan mas'uuliyadda kaleeta iyo qaybaha ururka ee goobjoogga wariyayaasha iyo bahda isgaarsiinta waad salaamantihiin salaan kadib shirkan isaga juhdi badan baa la geliyey ujeeddo fogna waa laga lahaa hase yeeshee waxaad moodaa inuu ku yimid dhaawac ay u geysteen dad ujeeddooyin iyo dana gaar ah wato annaguna dan iyo ujeeddo gaara maanaan lahayn masaalix caam ah iyo mustaqbalka bulshadan baan hiigsanaynay isaga ayaana wax ku dhisaynay bartilmaameed iyo hab meesha aan ka duulaynana noo ah mar hadday sidaas tahay annagu xoolana ma raadinayno doolarna ma raadinayno daarana ma raadinayno waxaan waardiyaha ka nahay waa mustaqbalka ummaddan iyo bulshadan waqtigooda iyo aayahooda dambe saas daraaddeed wax kasta oo aanan u cuntamaynin in aan qaadanno suurtagal ma shirka annagaa soo bilownay heerar kala duwan buu soo maray meel buu soo gaaray 20 maalmood u dambeysay ayaa shirka wadadii uu ku socday laga leexiyay taasna ma aha wax noo cuntama in aan qaadanno way agtanada meel marka kana saas daraaddeed waxaan caddaynayaa sidii war-saxaafadeedka lagu akhriyay haddii dadka maamulka iyo qaab socodka shirka gacanta ku haya haddii ay ku guulaystaan in la bedelo qaab ahaan sida uu ku socdo shirka kaalin iyo dowr muhiimana laga siiyo dadkii hawshan iyada alifay ee keenay noocay noqotaba maamulkiisa hogaamintiisa jahayntiisa iyo meelmarintiisa intaba waxaan u arkaynaa in uu yahay shir aanan noqon karin maslaxad caama mid looga dan leeyahay halkaasaan ku hor istaagnay waadna mahadsantihiin bulshada inteeda kaleetana way mahadsan tahay shacabkana waxaan u sheegaynaa annagoo khayaano naga filmaysaan inaan idin lugoynana naga filmaysaan waxaad naga filaysaan waa inaan dantiina u taagannahay si kasta oo ay noogu jaban tahay iyo wax kasta oo suurtagal ka dhigayo in mafhuumka annaga aan ku soconno wax ka duwan laga qaato waxaan u sheegaynaa inaanan marnaba ku dabcaynin dadkanagana qadiyadooda aanan ka tanaazulaynin maslaxadoodana aan mataqaanaa aan u taagannahay sidaas daraaddeed shacabka waxgaradka indheergaradka aqoon-yahanka daacadda ah iyo bulshada inteeda kaleetaba waxaan ka codsanaynaa wax allaala wixii afkaar ah ee mustaqbalka wax ka tara ee aan ku soconnay fagaaraha la nimaadno inay nagu taageeraan wad mahadsan